بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan la kulmay wasiir kamid ah wasiirada maamulka Soomaaliland mudane wasiir ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair birri wal ciideysanaaya ciid wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim anaga ciidaasna ma qusayso ciida waxa laga sheegay magaalada Xamar dawladda yar taagta daran baa sheegtay iyo maamulka Majeerteeniya anagana ma qusayso ciidaasi marka waxa weeye wiilkan yar ee la yiraahdo khayre ee dayniile laga soo doorto dayniile u gaari laayay 25 kun oo ciidamo Afrikaan ah ilaaliya inuu maanta anaga ciid noo sheego midaan u dul qaadanayna maaha shacbiga reer Soomaaliland waxa yeelayaan ma aha jamhuuriyaddan qaranka reer Soomaaliland waxaan leeyahay war cadawgiina iyo nacabkiina kala barta maanta in Xamar la inooga sheegay ciid oo la yiraahdo Xamar baynu la ciideynaa macquul ma noqonayso waana ka dagaalamayna arrinta هذا مدن حمر كليل لقى مشيجين وعالم كردن يا لقى عيدا يا مسلمين تعدون كردن وعيديسا جار أهان سوماليين كردن وعيديسا شنطة الصوماليات سومرك عديك محاول سهر جيسة عيد لقى صو شيء إن بشي لقى أركي مقالة حمر أنا وحمر لقى عيدين وخوش شيء فرمات وحنا أديرك كل دجالنا أديرك بأنه كدينا أن عيدنا أديرك بأنه كل دجالنا إنه عيد ناشئه marka maantana meeshii adeerkiiba ku socdaa nama qusaysa ciidaasi shacbiga reer Soomaaliland anagu waxaan leeyahay ka warsuga walaalihiina Itoobiya marka hore waxaan leeyahay ugu baaqayaa wasaaraddeena hawada inay ciidda iyo bisha raadiso hadii ay arki weydo walaalihiina Itoobiya marka leenahay walaalihiina Itoobiya ma aha inaan ka hadlayo dhagax buur iyo jigjiga iyo maqalla iyo Addis Ababa walaalihiina Itoobiya jooga ayaan waxaan rabaa inay ka warsugaan nimankaas inuu la ciidayna aan walaalaha nahay shacbiga reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa cadawgiina iyo nacabkiina kala barta